bismillaah magacaygu waa Fadxi Sheekh Cabdi Maxamed Kursow waxaan ka mid ahay asxaabta nimcaan ilka case oo youtuber ka mid ah youtuberada deegaanka Soomaalida ku nool khaasatan youtuberada da'da yar ee magaalada Jigjiga ku nool isku dayday inay khibradooda u adeegsadaan adeegsiga social media khaasatan aalada YouTube-ka iyo aaladaha kaleba waxaan xagan caawa aan ku kulannay asxaab ka mid ah qaar ka mid ah taageerayaasha khaaska ah ee nimcaan ilka case oo ku sugan Blue Mall Hotel magaalada Jigjiga waxay halkan iskugu yimaadeen casho sharafeed iyo dhiirigelin loo sameynayo walaalkeen youtuber nimcaan ilka case oo muddooyinkan ugu dambeeyayba fiidiyoyada uu sameeyo iyo ficilada uu ka hadlay social media si khaas ah u qabsadeen waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyarada shanta Soomaaliyeed magaalo kasta joogaan kuwa NFT jooga kuwa Soomaali waqooyi jooga iyo kuwa koonfur joogaba inay walaalkan dhiirigelin khaas u sameeyaan waayo Soomaalidu waxay aad iyo aad ay caado ahaan jirtay dhaqan u lahaayeen inay kooga liita iyo kooga sareeyba ay mid kaliya haata ugu adeegaan ama si isku mid ay u dhiirigeliyaan walaalkan nimcaad waa dhalinyarada da'da yar muddooyinkan dambeba aaladaha YouTube-ka iyo aaladaha kaleba kasoo dhex muuqdo waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay taageero khaas ah siiyaan oo subscribe iyo like taba ay ugu caawiyaan walaalkan hadduu fiidiyogani soo gaaro aad iyo aadna waxaan u salaamayaa Soomaali Maxamed meel kasta ay joogto khaasatan waxaan salaamayaa dhalinyarada ku xiran YouTube-kan nimcaan ilka case iyo Soomaalida kale daawataba aad iyo aad baan u salaamayaa salaanaan la soo koobi karin baan magaalada Jigjiga uga soo dirayaa waxaanan ku rajaynahay inay codsigaygan tixgeliyaan oo walaalkeen dhiirigeliyaha ah youtuberka ah nin firfircoon oo aaladan aad iyo aad mataqaanay uga faa'iideysto inay caawimaad iyo dhiirigelin uga dhigaan taageer ahaan ay ugu siiyaan subscribe-ta iyo like-ta halkan waqtigeedana waxa ka muuqda mataqaanay biisa iyo doolarka Ethiopia tan doolar baan anagu naqaanay wadamada kale bir baa looga yaqaanaa laakiin inaga doolar bay noo tahay waa kaliya gabdhaha lagu hanan kara saas aan yara dhaynay marka insha Allah waxaan ku rajaynahay inaan mataqaanay aan walaalkii taageera wixii heliyo hoobaaba la ag taagnaado wax kastoon ku dhaamana inaan ku garab siiyo xagan waqtigeedana caawa casho sharafeed baan ooga muuqdo casho sharafeedkana aad iyo aad baan uga dhiiriyaan mataqaanay uga faraxsanahay inaan kasoo qayb galo waxa iyaguna sugaya asxaabta qayb ka mid ah waxaan ku soo dhaweynayaa asxaabta kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان أد بانو سلامي يا أمة الصومالية halkan naga daawanaysid waa nimcaan ilka case waxaan leeyahay ku soo dhawaada ana haray looma hadlo ma garanaysaa marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed subscribe ta like ta share aad baan idin salaamaya gabadhana ku wareejin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magacaygu waa Muna Axmed Ugaas inta baan taqaanaan halka adiga daawanayso waa nimcaan ilka case YouTube waxaan la joogaa galabta asxaabta oo ka mid yahay cameramanka Ismaan Canka abwaanka Fadxi Kurulus iyo youtuberka oo nimcaan ilka case hadana duubayo dhammaan waxaan leeyahay asxaabta halka naga daawanaysaan waa YouTube-ka nimcaan ilka case subscribe ki like noo saari karsan aad badan wadmaasantiin saaxiibay lahaantiin badafaa caalam mid boo joogtaan kuwan waxaan asxaabtayda oo markasta igu dhiirigeliyeen in soo sameeyo fiidiyoyaal qurux badan run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta casho sharafta ay sameeyeen ay iguna casuumeen hotelkan Blue Mall Hotel oo runtii ah hoteelada ugu waaweyn hoteelada ugu caansan ee caasimada deegaanka magaalada Jigjiga run ahaantii maanta farxadeyda lama soo koobi karo way asxaabtaydan la qaadanaya waqti tiim nimcaan ilka case idil baa halkan ku dhan waxaan naga maqan oo kaliya ta kulli xubnihii ugu muhiimsan hadda way joogaan dhowr xubnood ayaa naga maqan dhamaantoodana insha Allah halkan baan uga hambaliyeenaya waxaan ku hambaliyeenaa dhamaantiin inaad ku xirantiin YouTube channel-keena aydan ka maqnaan inta ka maqan insha Allah waxaan rajaynaynaa ku xirnaan doonaan ku soo xirmi doonaan midaas kulli waa rajadeena markasta inaan dhiirigelino sidii dhiirigelin idin kurina noo dhiirigelisaan inaan soo duubno fiidiyoyaal qurux badan marna aydan ku caajisin YouTube-keena kulli su'aal baa jirta ani xataa maskaxda iska weydiiyo maadaama dhiirigeliyaha sababtan fiidiyoyaashan bilaabay kulli dhalinyaradu waxay iska jeceshay entertainment-iga waana muhiim mar walba entertainment iyo madadaalin inaan ku soo daro fiidiyoyaashana dhiirigelinteena ma aanan joojin dhiirigelin nimcaan ilka case wali waan
yahay waana sii wadayaa aniga asxaabtayda dhammaantood way kasoo muuqan doonaa youtube channelkana waa wada dhiirigeliyaal waa wada entertainmentistayaal marka entertainmentigu waxaan kulley jeclaystay oo aan ogaaday inuu muhiim u yahay dhalinteena si inay noogu caadsin kulley fiidiyoyaashan dhiirigelintan waa sii bilaabi doonaa entertainmentigana waan wadaynaa insha allah waxaan rajeynaya hadda waqtiga soo dhow inaan barnaamij bilowno kaasoo kulley la magac bixi doono codaynta youtuberada kaasna kulley waan bilaabi doonaa laakiin caawa waxaan sugu manay qada sharaf casho sharaf hadda waxaan rabaa inaan isu gudubno qaybihii kaftanka iyo su-aalihan ugu talagalay inaan isweydiino goobtan waad mahadsantihin saaxiibeel dhammaantiinba inaad rabno macalka casab waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiinta baala dadka su'aalaha weydiiyo balse caawa anaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo oo diga jawaabto waad mahadsantahay kulley diyaar baan oo su-aashana kaaga jawaabo laakiin ayagu adkaynayaa ayaga waxaan rabaa inaad ii sheegto wax caanisu xalaal yahay hilibkiisuna xaaraan waxaa waaye dee hada waa laysoo wacaya laakiin waa kaga jawaabaya maxaa tiri kusoo celi wax hilibkiisa wax caanisu xalaal yahay hilibkiisuna xaaraan waa dumarka wax kale waa dumarka maaraya kulli hadda isku day su'aashaas waxa ila tahay inay dumarka laakiin waxaan maraynayaa kulli su'aashaas weydiisay inay dumarka tahay haddaan isku dayo laakiin waan qaldi karaa qasab ma dadkan aan su'aalaha weydiinayna inay wada saxaan way jiraan qaar qalday wayna jiraan qaar ka qayb muhiimadu waa inaad ka qayb qaadato qaar saxay kuwaan saxaynba marka haddii ay sax tahay haddana saxayn baan ku kalsoonay su'aasha weydiisay wariye Munawgaas aad baad u mahadsantahay laakiin su'aasha waa saxday laakiin inaad dhahdeed waa hooyada intaa kaliya ku qaldan nimcaanow su'aalaha haddaan ka qayb qaato waxaan ku weydiin lahaa new wax noo sheegtaa bal waxyaalaha kugu dhaliyey inaad youtuber noqoto iyo fikraantaad ka aaminsan tahay qorshaha fogeed ka aaminsan tahay youtuberka inaad horumar ka gaadho ma inaad halkaa ku sii istaayso mise inaad keliya caan noqoto bal maxay كل عادر وأدي أدبل ما صنت السؤال وديني سواء حن فلا يعني ما أنتظر كفكري سي أنا كل يوم مركب أروح أسأل سؤال تنكرب أظن بكويديني لكن إنك استضيف صح شيء وأنا كجت جوابيا وده صاحب غفل بهم بيقوليه غفل بروح وليه هي هيك سدار إنه نرى شهر مركب جاره هر مركب يروح على يوتيوبر إن النقطة يوتيوبر وين النقطة إن السوشيال ميديا هذا قصة النقطة أنا يوتيوب لهنا يعني مركب فيسبوك قصة موقع تري بوستيان صور كتير وحيابا نوع عشان كهذا تري وقدامي وحكون فكري على يوتيوب كانوا قصة بيرو عن جنا الفرطة سانو قد حموقضة لكن مهمة دي وين ما أهن يوتيوب إن كريه لعك دليو يوتيوب كواحد ربع إن نوقف فايدة بالشديدة مهمة دي وين يوتيوب أفرطة وأنا كودي رجري دلنت الصوماليات وأنا بدل قاب فكر كجرة أنا دلنت الصوماليات دلنت مجدي وكجرت أنا كجسر وكل ومدة ذكر هدان أركب بقول هالقف أو ما أنت فكر كأنا نو هيستو قاعدة تهدي ومت سحية هاي رنا هانتي وحلا كراهمي يعني كلها يوتيوب كون كجاري مدة همي هو جاري كرنا وأنا رجري وكريه دلنت انترتينمنت كان يصدوه كل وين نكون مداليو لكن مهمة دي وأنا دلنت كودي رجري صابت سنة وسبيت waad mahadsantiin saaxiibayaal kulay fiidiyogeena intaas inoogu dhamaaday aad iyo aad mahadsantiin dhalinyarada ka maqan insha Allah waqti kale ayaan idin horkeeni doonaa oo baran doontaan maanta waxaad barateen raqaale oo kamid yahay Cusmaan Caanka kaameramanka kulay isagana waa tiktoktiisa waxa uu qoran Cusmaan Xaaji dhamaantiina soo booqda Fadxi Aadir Kurusow wuxuu nooc qaabilsay soo kala qaybta siyaasadda ninka waa siyaasi weyn oo maleynay laakiin isna uu ku jira kooxdana waa dhiirigeliye waa qof runtii public of speaker oo fagaara ka hadala insha Allah isagana aad iyo aad baan ku soo gudbin doonaa fiidiyoyaashiisa Munawgaas wariye Munawgaas waad garanaysaan waa gabadhii kala qayb qaadanaysa barnaamijkii hore iyadana aad iyo aad baan halkan ku mahadcelinayaa dhammaantiin waad mahadsantiin intaa waxaan nooga fiidiyogan ku talagalay iyo casho sharafteeni wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh